السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركز soo dhawaadaha muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago wasaaradda cadaaladda oo shalay soo bandhigtay in ka badan 3 milyan oo Epstein fileski sirta ahaa oo ay ku jiraan xitaa sawirro fiidiyoyo iyo waliba qoraallo haddaba 42 maalmood kadib muddadii loogu talagalay inay soo bandhigaan ayay shaaca ka qaadeen shalay maxaa la qarinayay Trump magaciisa oo ka soo dhex muuqday Elon Musk oo sidoo kale ka dhex muuqanaya laakiin dhibanayaashii waxa ay leeyihiin dadkii dhibanayaasha ayna magacyadoodii iyo informationkoodii waa la sheegay laakiin kuwii dhibaatada u geystay waa la qariyay raggii dhibaatada u geystay sidaasi ayay leeyihiin sidoo kale waxa idin wadaagayaa dowladda Mareykanka oo caawa qayb ahaan xirmaysa wasaaradaha qaar sabtida iyo axadda waa ay sii shaqayn doonaan laakiin wasaaradaha qaar waa ay xiran yihiin maxay tahay sababta sanadku ay maalgelinta wasaaradda amniga gudaha ay uga reebeen maadaama xisbiga dimuqraadiga ay dalbadeen in isku shaandeyn ama isbedel lagu sameeyo wasaaradda amniga gudaha oo ciidamada ICE ay hor yimaadaan dimuqraadiyiintu maxay yihiin waxyaabaha ay dalbanayaan arrimahaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago iyo Amy Klobuchar oo senator dimuqraadi oo Minnesota laga soo doorto oo aqalka sanadka ee Congress-ka Mareykanka ku jirta ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay tahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha gobolka Minnesota kadib markii horaantii bishan uu sheegay inuusan tartami doonin Tim Walz oo la filayay markii saddexaad inuu tartamo arrimahaasina waan idin la wadaagayaa balin Epstein files arrimihii Trump inta badan lagu cadaadin jiray in sharci uu jiray labada aqal ay meel mariyeen Congress-ka madaxweynuhu oo saxiixay waxa la ahayd in la soo bandhigo Epstein files dhammaantood 19 bishii December ee 12aad ee sanadkii hore tagay ee 2025 laakiin wasaaradda cadaaladda waxa ay tiri maadaama dukumentiyadu ay aad u fara badan yihiin lana doonayo in waxyaabo fara badan laga reebo oo ay ka mid yihiin dadka dhibanayaasha ah iyo sidoo kalena maadaama baaritaano ay qaybo ka mid ah Epstein files ay ku socdaan lana doonayn xogta dadka la baaraya in la soo bandhigo waan kala hufeena marka waxa la leeyahay 42 maalmood maxaa la qarinayay ma Trump magaciisa laga reebayay ma dad kale magacyadooda laga reebayay dukumentiyada waxa ka dhex muuqanaya in xitaa qaybo kamid ah qoraalada in madow laga dhigay oo aan la akhrin karin fiidiyoyada sidaas oo kale waxyaabo kuwa noocaasi ayaa ku jira oo aan la furi karin oo aan la daawan karin marka wasaaradda cadaaladdu website-keeda ayaa qayb waxay uga samaysay la yiraahdo Epstein Library marka faylalku halkaasi ayay ku jiraan iyagoo PDF qofkii rabo ayaa gali kara isla markaana arki kara xitaa qaybo Somaliland iyo Soomaaliya markan waa lagu soo daray oo arintan xitaa ninkan Epstein files waa uu ku lug lahaa marka in ka badan 3 milyan oo page oo book ayaa la soo bandhigay oo Epstein files falalkii sirta ah in ka badan 2,000 oo video ayaa ku jirta iyo 180,000 in ka badan oo iyaguna sawirro ah marka waxyaabaha la qariyay maxaa kamid ah waxa kamid ah informationka lagu ogaan karo dadkii dhibanayaasha ahaa inta badan waa la qariyay walow hadda dhibanayaashii qoraal ay soo saareen ay leeyihiin wax noo qarsan ma jiraan laakiin dadkiina dhibaateeyay ama madaxda ahaa ama dadka lacagta lahaa magacyadooda waa la qariyay waxa kamid ah haddii ay jirtay faraxumeyn caruur loo geysanayo waxaan ognahay Epstein gabdhaha oo loo geyn jiray dadka ka iibin jiray gabdhaha aan qaangaarin ay ahaayeen inta badan oo caruur ah marka iyadana waa la qariyay waxa sidoo kale kamid ah faylalka la xiriira baaritaanada socdo sida aan idin sheegay iyo sawirro haddii ay jiraan dhimasho dad dhimanayo la dilayo ay ku jiraan iyo sidoo kalena physical abuse qof dhibaato markaasi loo geysanayo la dhibaateynayo ama la jirdilayo ama la kufsanayo haddii ay jireen iyagana sidoo kale waa la qariyay marka sida idin sheegay 42 maalmood kadib ayaa la soo bandhigay wasaaradda cadaaladdu ay soo bandhigtay Epstein fileskan oo sirta ah marka ninka ugu taajirsan adduunka Elon Musk ayaa hadda ka soo dhex muuqda waxaan ognahay Trump iyo Elon Musk markii ay isku dhaceen sanadkii hore in Elon Musk xitaa uu yiri Trump sababta uu diidan yahay in Epstein files uu soo bandhigo maxaa yeelay isaga ayaa ka buuxa marka hadda isaga ayay haysataa Epstein waxa la ogaaday email uu u diray sanadkii 2012 uu leeyahay habeenka ama maalinta xafladda ugu qatarsan ay ka jirtay jasiiradaada bal ii soo sheeg Elon Musk ayaa waxa uu u dirayaa ninkii Epstein ahaa walow hadda Elon Musk uu iska fogeynayo arrintaasi uu leeyahay ninkii Epstein waxa uu isku dayay jasiiradiisa in uu igeeyo laakiin aniguna waa aan ka diiday marka wasaaradda cadaaladda
wasiir ku-xigeenkeedu waxaa wasiir ku-xigeen ka ah oo Trump u magacaabay Trump ninkii qareenka uu ahaan jiray dacwadihii New York xilliga ololaha uu ku jiray uga socday ninkii qareenka u ahaa Todd Blanche ayaa la yiraahdaa isaga ayaa marka wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda shalay marka la soo bandhigayay faylalkan Epstein files ee sirta ah ninka hadlay oo soo bandhigay isaga ayuu ahaa marka waxa uu yiri waxaan soo bandhignay 3 milyan in ka badan iyo 2,000 oo video iyo 180,000 oo sawiradaas waxaa la weydiiyay ma waxa jira in Trump magaciisa aad qariseen meelo fara badan oo si aad asaga u difaacdaan marka arrimahaasi waa uu ka jawaabay waxa uu yiri qof oo Trump amaba qof kale oo aan ilaalinayno ama difaacayno ma aysan jirin intan waxaan wadnay baaritaano iyo in aan kala hufno faylalkan sidaas darteed ayaanan si shacabku ay hufnaan u dareemaan iyo inay cadaalad jirto sidaas darteed ayaan u soo bandhignay haddaba waa kan Todd Blanche oo markii uu soo bandhigay shalay faylalkan ka hadlay isla markaana dhahayay Trump wax la xiriira oo aan qarinay ma jirto walow la leeyahay hadda meeshan inkastoo boqolaal jeer Trump magaciisa lagu xusay laakiin haddana wax dambi la xiriirinaya kuma jiraan marka waxyaabo fara badan oo Trump la xiriirinaya in uu ku lug lahaa gabdhahan ninkan loo geyn jiray arrimahaasi in la qariyo ayaa muuqanaysa haddaba waa kan wasiir ku-xigeenka cadaaladda oo Trump qareenkiisii hore ahaa oo shalay hadlayay markii uu soo bandhigayay faylalkan sirta ah ee Epstein file xisbiga dimuqraadiga wali arrintan kuma qanac gudoomiyaha aqlabiyadda ee aqalka sanadka oo dimuqraadi ayaa waxa uu yiri magaca Trump imisa jeer ayaa la qariyay waxaan doonaynaa in laga jawaabo arrintaasi oo wasaaradda cadaaladdu ay jawaab ha iyo maya ay ka bixiso marka waxa uu leeyahay way jirtaa in magaciisu uu muuqdo laakiin ma jira meelo kale oo magaciisa dambiye la xiriirinayay oo la qariyay arrintaasi jawaabo ayaan uga baahanahay ayaa ninkii Jack Schumer ahaa uu leeyahay isagoo ka hadlayana waxa uu yiri marka dadka eedeysanayaasha sidaan idin sheegay qoraalkan ayay soo saareen waxa ay leeyihiin waxaa shaaca laga qaaday faylalkan hadda lagu sheegay inay cadaalad yihiin iyo hufnaan waxaa muuqanaysa in dadkii dhibanayaasha ahaa ama ka badbaaday dhibaatooyinkaasi dadka maalqabeennada dadka madaxda ay ku sameeyeen in magacyadoodii iyo sidoo kalena informationo kale oo lagu ogaan karo shaaca laga qaaday laakiin waxa la qariyay ayay leeyihiin oo la ilaalinaya raggii dhibaatada u geystay gabdhahaasi oo hadda qaarkood hooyooyina oo guursado iyaguna hadda caruur leh oo ilmahooda xitaa qaangaar ay yihiin marka waxay leeyihiin wax qarsan ma jiraan waxa kaliya oo la qariyay waxay tahay dadkii dhibaatada u geystay gabdhahaasi yaryar oo qaangaarin in ilaa iyo hadda wali la difaacayo dhinaca kale waxaan ognahay government shutdown ayaa laga cabsi qabay horta aqalka cad labada xisbi ee Republicaanka iyo Dimuqraadiyiinta xubnaha Congress-ka uga jira arrintaasi waa laga heshiiyay xalay aqalka sanadka waxay meel mariyeen sharci dawladda si maalgelinaya sanadkan oo idil waa fiscal year-kan ilaa iyo September 3-keeda sanadkan 2026 laakiin waxa laga reebay wasaaradda amniga gudaha oo ciidamada ICE iyo ciidamada xuduudaha ay hoos yimaadaan dimuqraadiyiintu waxay yiraahdeen waxa aan doonaynaa sharcigan waa ogolnahay laakiin ha laga reebo qaybta lagu maalgelinayo wasaaradda amniga gudaha sababo la xiriira howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan gobollo dhowr ah oo gobolka Minnesota ay ka mid yihiin 71 xubnood oo sanadka ayaa u codeysay 29na waa ay diideen maadaama marka sharcigan horey aqalka wakiiladu ay u soo meel mariyeen toddobaadkii hore wax isbedelna lagu sameeyay dib ayaa loogu celinaya aqalka wakiilada isniinta marka ay soo laabtaan inay ansaxiyaan ayay u badan tahay marka wasaaradda amniga gudaha 2 toddobaad oo kaliya ayaa la sii maalgelinaya labadaasi toddobaad waa inay ka wada hadlaan labada xisbi sidee wasaaradda amniga gudaha loo sii maalgelin karaa isla markaana isbedel loogu sameyn karaa marka labadaasi toddobaad oo kaliya ayaa la sugayaa marka in labada xisbi ay heshiis ka gaaraan xubnaha dimuqraadiyiintu waxyaabaha ay dalbanayaan waxa kamid ah in isbedel lagu sameeyo in ciidamada ICE howlgallada marka ay sameynayaan loo xiro kaamirooyin sida kuwa booliska oo kale ay wataan ah iyo in ciidamada ICE ay iska dhigaan maskaraatiga u xiran oo wax maskaraatiya aysan qaadan marka ay howlgallada ay sameynayaan iyo in la soo gabagabeeyo howlgallada ay ka wadaan gobolada dimuqraadiga sida gobolka Minnesota oo kale in howlgallo balaaran oo noocaas aysan mar dambe aysan sameyn karin waxa sidoo kale kamid ah bilaa warranty la'aan in aysan dad iska xiri karin iyo sidoo kalena in ay wada shaqayn la sameeyaan ciidamada kuwa gobolka iyo kuwa kale ee gudaha ee magaalooyinka ay howlgallada ay ka sameynayaan jooga waxa sidoo kale kamid ah waxyaabaha ay dalbanayaan dimuqraadiyiinta in la helo physical identification
kaar muuqdo oo la ogaan karo qofkan hay-adda uu ka socdo magaciisa in baajkaasi loogu dhajiyo xabadka hore sida ciidamada booliskuba ay u wataan marka ay ciidamada ICE howlgallada ay sameynayaan oo isqarintan iyo gebi ahaanba meesha laga saaro marka arrintaasi ayay dalbanayaan xisbiga dimuqraadiga haddana waa laga reebay miisaaniyadda dowladda wasaaradda amniga gudaha waa laga reebay 2 toddobaad oo kaliya ayaa lasii maalgelin doonaa labadaasi toddobaad marka waxyaabahan dimuqraadiyiintu ay dalbanayaan waa in xisbiga Republicaanku uu ka soo jawaabo haddaba marka wasaaradaha sii xirnaan doono qayb ahaan iyo wasaaradaha sii shaqayn doono maxay kala yihiin wasaaradaha sii shaqaynaya waxa kamid ah wasaaradda ganacsiga kale waa ay sii shaqaynaysaa wasaaradda cadaaladdu waa ay sii shaqaynaysaa wasaaradda arrimaha gudaha waa ay sii shaqaynaysaa marka amniga gudaha iyo arrimaha gudaha waa laba wasaaradood oo kala duwan marka arrimaha gudaha ayaa sii shaqaynaysa sidoo kalena hay'adda ay ilaalisa deegaanka oo EPA loo soo gaabiyo waa ay sii shaqaynaysaa wasaaradda tamartu waa ay sii shaqaynaysaa wasaaradda beeruhu waa ay sii shaqaynaysaa oo food stamps-kii lama jaran doono ilaa iyo September 30keeda dadku waa ay heli doonaan sidoo kalena Veterans Affairs-ka wasaaradda ina qaabilsan iyaduna waa ay sii shaqaynaysaa wasaaradaha xiran marka ilaa iyo isniinta aqalka wakiiladu ay sharcigan sanadka xalay ay meel mariyeen la meel mariyo wasaaradaha sii xirnaan doona waxa kamid ah wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda shaqaalaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda gaadiidka wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ay raadeen wasaaradda caafimaadka waa ay ku jirtaa sidoo kale wasaaradaha xirnaan doona iyo sidoo kalena wasaaradda amniga gudaha oo iyaduna xirnaan doonta marka wasaaradahaasina waa ay xirnaan doonaan kuwa kale oo hore idinku sheegana sidoo kale waa ay sii shaqayn doonaan ugu dambeyntii waxaan ogeyn 6dii bishan gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz inuu isaga haray tartanka gudoomiyaha gobolka Minnesota oo dhamaadka sanadkan dhici doonta kadib markii arrimo fara badan oo arrimahan musuqmaasuqa inuu wax ka qaban waayo gobolka Minnesota ku baahay arrimahaasi oo idil marka Republicaankuna ay sidaasi doonayeen marka waxaa laga cabsi qabay in dimuqraadiyiintu aysan keensan qof xubnaha Republicaanka ee tartamaya la tartami kara marka waxaa khamiistii ku dhawaaqday inay musharax tahay senator Amy Klobuchar oo aqalka sanadka ku soo jirtay ku dhawaad muddo 19 sano ilaa iyo sanadkii 2007 Amy Klobuchar waxay sheegtay in gudoomiyaha gobolka Minnesota ay u tartamayso waliba dadka Soomaalida community-ga Soomaalida aad ay u taageertaa iyada iyo Ilhaanna waa saaxiibo hadda toddobaadkii la soo dhaafay markii dhageysiga ay ka sameynayeen Minneapolis waa ay isla socdeen labaduba marka Amy Klobuchar ayaa waxay ku dhawaaqday inay musharax xilka gudoomiyaha gobolka Minnesota ay tahay muuqaalkan oo baraheeda bulshada ay soo dhigtay ayayna si rasmi ugu dhawaaqday waxa ay sheegtay inay musuqmaasuqa la dagaalami doonto isla markaana sidoo kalena gobolka Minnesota ay wax badan u qaban doonto haddaba waa kan muuqaalkii markii ay ku dhawaaqaysay musharaxnimadeeda hadii aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono iyo nabadgelyo